siyaasiyiinta kale ah Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada xukuumadda Axmed Maxamed Silaan iyo Maxamed Ibrahim Aadan Qabyatire wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Axmed Silaan iyo waliba sidoo kale Maxamed Dambeel oo isagu madaxii campaign-ka xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka Maroodijeex oo dhamaantood ka wada tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye hase yeeshee maalin dhaweyd iska waayay liiska rasmiga ah ee golahaasi dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa maanta afka furtay isla markaasina xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi u soo jeediyay dhalilo kala duwan kuwaas oo inta badan si toos ah ugu qotomay wax qabad la'aanta ay sheegeen inay dul hoganayso xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa warkani magaalada Hargeysa ka soo diray wariye Daariqa siyaasiyiinta Maxamuud Xaashi Cabdi Maxamed Aadan Qabyatire iyo waliba sidoo kale Maxamed Dambeel oo dhamaantood ahaa saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga kulmiye xilal waaweyn ka soo qabtay xukuumaddii madaxweyne Silaanyo ayaa waqtigan cadho kaga maqan xisbigoodii kulmiye waxaana u jahaysteen sidii ay mucaaradad adag uga horiman lahaayeen xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xisbiga talada dalka haya ee kulmiye walow siyaasiyiintani ay si weyn ula dhacsanaayeen baratankii madaxweyne Biixi ugu jiray sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa talada dalka bal dib aynu xasuusanno waxyaabihii ay ku sifayn jireen madaxweyne Biixi waqtigii lagu jiray ololaha doorashada aynu dib u milicsanno hadalladii Maxamuud Xaashi Cabdi oo waqtigaasi ahaa wasiirka madaxtooyada xukuumaddii madaxweyne Silaanyo uu ku sifayn jiray murashaxii waqtigaasi ee xisbiga kulmiye haatanna ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi laba musharax oo ummadu garanayso oo dadku garanayo oo iyagu dalka garanaya guri guri iyo geed qarankan u garanaya ma aha rag looga sheekaynayo ma wadano musharaxiin dhagta wax loo saarayo ee waxaynu wadanaa musharaxiin hal abuur leh oo wax walba iyagu garanaya hindise leh hal abuur leh higsile baynu wadanaa qarankani wuxuu u baahan yahay hogaamiye wanaagsan waxa soo maamulay hogaamiye wanaagsan oo Axmed Silaanyo ninka kabihiisa gashanaya waa inuu noqdaa hogaamiye wanaagsan saddex nin baa qaranka u sharaxan madaxweynenimo jagadiisa kursiga Axmed Silaanyo nin buu qaadaa laba ma qaado la iskuma celiyo karo hadaynu laba saari lahayn nin baa maamulaya qarankan waxaynu leenahay qaranka waxa uu tartamaya hogaankiisa laba nin oo wanaagsan iyo hogaamiye wanaagsan waxaanu leenahay qaranku wuxuu u baahan yahay rag wanaagsan oo keliya uma baahna rag wanaagsan waxa u baahan guryahooda iyo qoysaskooda nin wanaagsan wuxuu arrimiyaa gurigiisa laakiin qaran uma arrimiyo qaran waxa uu arrimiyaa hogaamiye wanaagsan waxaanu leenahay Muuse Biixi Cabdi waa hogaamiye wanaagsan u baahan tahay xisbiga kulmiye waxay u baahan tahay musharaxiinta xisbiga kulmiye wuu guulaysan doonaa aniga caadiga ma saara dagaal sokeeyo dalkan ka dhacaya ma jiro kuwa ku riyoonaya dadka ku cabsi gelinaya waxaan leenahay dagaal sokeeyo waa soo dhamaaday siyaasad baynu ku kala adkaanaynaa haddaana laga daano waa nasiibkiin haddaanu idin laganada waa nasiibkiin annagu dagaalka waa naqaanaa inna la legda waa naqaanaa inaanu wax lagadna waa naqaanaa waanu guulaysanaynaa waxaanu aragnaa saadaasha dabaysha ragga aan garanaynee maanta maraya dagaal baa dhacaya dagaal dalkan ka dhici maayo dawlad adag baa ka talisa annaga amniga ka mas'uula doorashadana komishanka ka mas'uula bal dib isagana aynu u eegno siyaasiga Maxamed Aadan Qabyatire oo waqtigaasi ahaa wasiirkii qorsheynta xukuumaddii madaxweyne Silaanyo wixii uu ku sifayn jiray iyo waliba sidii uu la muuqday murashaxii waqtigaasi ee xisbiga kulmiye haatanna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixi iyo Saynici waa laba nin oo muwaadiniina waa laba nin oo ambassador ajnabi haysan labaduba waxay deegaan ku iyaga iyo carruurtooduba Soomaaliland afartan musharax kale la tartamaya laba waxay haystaan finish bay haystaan ninna Mareykan buu haystaa ninna UK buu haystaa afartan nin Cabdiraxmaan iyo Muuse la tartamaya waa niman ajnabi oo baasaboorro ajnabi haystaan waxaynu ku soo dhaweynaynaa ku soo daabinaynaa waxaynu leenahay xidigtii cadayda laga xiisa dhacay calankii la xooraa karsi jows ka dhigato wadaniyow wuxuu ma ismali hide
xamaray baay baay baynu leenahay xamaray innagu xamaray iskuma ogin haddaba 3 sano oo xukuumadda madaxweyne biixi ay hogaaminayso talada dalka maxaa isbedelay maxaa ka dhawaajinaya siyaasiyiintani aan taageerada iyo shacabka madaxweyne biixi aanay cid ugu horreyn jirin waqtigii lagu jiray ololaha doorashada waan arkaa saaxiibkay madaxweyne muuse waxaan leeyahay waan arkaa inaad tashatay waanan arkaa inaad tunka taagayso waxaad se tashatay tala xun waxaad tashatay inaad cidna u tudhin waxna ka tegin waxaad tashatay inaad cidna tala weydiin cidna u tanaasulin waxaad tashatay inaad keligii taliyo noqoto nin joogana aan tirin mid ka tegayna aan tebin taladaada xumi markay kuu urto cidna ha eersan ee adkayso baan leeyahay muuse maalinta ay ninka ay isqabtaan maalin ama waxay sidaahdaan ma iloobayo waxay noqotay dawladdeena iyo xukuumaddeena one man show haddii aad ku soo 10 ama 20 ama guddiye hadday soo gaadhaan go'aan ma soconayo ka muuse mooyaane ma soconayo waxaad ogeydeen raggii halkan ku ahaa cayaanta ku ahaa ama hadday tay ilaa qaaxo ay saaxiibada ahaayeen qaar baanu xabaalahoodii tegin sida xasan guuro kale ninka maalin wax ka yidhaa daankaa dambuu dhigayaa madaxweyneheennu cidna ma cafiyo waxaan isdul taagayaa mayd maxaa u dambeeye kaa la sii sido madaxweyne saylici madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan sida ka war haysaan wuu tanaasilay dhowaan caqliyadda taalla madaxtooyada somalilan madaxweyne ku-xigeenkii qaranka waa elected muddo xiloodkiisii baa socda wakhtigiisii muu dhammaan waa package systemkan aynu qaadanay wax lagu doortaa waxa weeye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waa package bay isku yihin dareenka madaxweyneheenna qaranka in madaxweyne ku-xigeenkiisii next doorkiisa fadhiyey ee ku xigay ee hadday maanta tiisii timaaddo ilaahay bay nagu keenay tii muuse biix ay timaaddo ninka qarankan ka noqonaya madaxweyne waa saylici waa madaxweyne saylici waxa weeye inaad ilaashato dhowrto ixtiraamto waayo waxbaa idin wadaajiyey waa laydin wada doortay waa elected muddo xileed buu ku jiraa wasiir ka mid a xukuumadda somalilan ayaa madaxweynaha qaranku uga qaaday kursigiisii maxamed cumar daariq RTN hargeysa